fiid wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada barnaamijka tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub dabcan marka aad maqasho jiilka cusub waxa mar walba kugu soo dhacaya dhalinyarada iminka ama dhalinyarada waqtigan joogta barnaamijkan ujeedadiisuna waxa ay tahay in fursad lagu siiyo dhalinyarada hibada leh balse aan fursad u helin madal ay ku soo bandhigaan hibadooda barnaamijkana waxa suurta geliyay wadnaha FM oo aad ka dhageysan kartaan 96.2 dabcan barnaamijkan waxa uu fursad siinayaa sidaan idin sheegay dhalinyarada iminka jirta haddii aan dib xasuusaheena u celina qaarkeen suurtagaleed inay waagaas noolaayeen qaar badan oo aniga ila midana ku maqaalo tahay oo aan filayo dhalinyaranimada inaan weli isxijinayno barnaamijkii tartanka heesaha hirgalay ee jiri jiray dunida casriga iminka ku noolnahayna waxa ka jira wadan walba barnaamijyo u khaas ah ama barnaamijyo guud oo sida X Factor Americans Got Talent iyo barnaamijyo lamid ah taasina waxay mar walba fursad u siiyaan bulshadooda madal ay ku soo bandhigaan hibada ku jirta mid lamid ah ayaa barnaamijkan heesaha waliba dhalinyarada si khaas ah fursad u siinaya in ay hibadooda ku soo bandhigaan xagga fanka waayahan dambana waxaad moodaa bulshada in markii barnaamijku bilaabanayay ay islahaayeen waxaan sii jiri doonin inay ama qaar badan madadaalo iyo qosol u arkayeen balse haatan goobta uu soo gaaray ay ka duwan tahay intaas soona saaray dhalinyaro badan oo hadduuna barnaamijkan jiri lahayn fursadan aan heli lahayn waxaan rajaynayaa markiisii koowaad ee barnaamijkan sanadkan markuu dhamaado sanadka badan tirada hadda ka soo qayb gashay tira ka sii badan inay ka soo qayb gali doonto barnaamijkana uu wado fur u noqon doono barnaamijyo badan oo dalka gudihiisa ka hana qaada fursadna siiya dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan filaynaa dal iyo dibadba inuu isgaaro marka laga soo tago fursadan waxa ku tartamaya barnaamijka qaybtiisa semifinalka 12 qof oo ugu dambeeyay oo soo gudbay barnaamijka waxaana barnaamijka garsoorayaalka 40 ruux ay hor fadhidaan magacyashooda idin sheegi doono dabcan markii hore 3 buu ahayd garsoorayaasha balse waxa hadda imika afareeyay waxa weeye tartanka oo xiisiisi leh qaybihii ugu dambeeyayna soo galay 4 garsoor hadda idin kala baro dabcan waa Shimali Ahmed Shimali waxa ag fadhiya waa Cabdirasaaq Ahmed Geedi aakhiro Daawud Yusuf Ahmed Daawud Xanfar iyo Yusuf Maxamed Maxamuud Yusuf Haybaro afartuba waa garsoorayaal waxa ayna u kala garsoori doonaan tartamayaasha qaybta semifinalka u soo gudubtay haddaan iminkana idin baro 12 qof ee qaybta ugu dambeysay soo gashay tartanka oo aan hal ugu yeeri doono aan filaya dhamaantoon inay soo garab istaagaan si ay dadku idin bartaan waxaan u yeerayaa Axmed Cabdulle Xasan محمد محمود محمد نور عبد الله حسين محمد عبد القادر محمد أصلي أبوكر أحمد نستاحو ضيح عبدي عبد الولي إبراهيم محمد محي الدين محمد توحو عبد القادر محي الدين كلمية فردوسة محمد حسن سهراء أحمد جمعالة يو دنبين خضر محمد مهدي لبيه طبعا كان ترتمى يقرب تاغن وحا اي كسو قدبين كلما كلا دوان مربا قيبيه سلاها طبعا قار بدن oo facebookyada fiidiyoyaasha ku daawateen baa laga yaabaa inay garab taagan yihiin qaar badan oo tartan ka soo qayb galay qaarkeen madadaalo badan u noqotay way ka dhacday balse 12 iyo waxay ka soo dhaxbaxeen tartamayaal badan qaarkoodna nasiibka iyo fursaddu u saamaxday inay tartanka soo gaaraan balse 12 kooda dhammaan hal qof oo kamid baa noqon doona guuleystaha 12 kalena iyagoo dadaalay ilaa ay heer semifinal soo gaarayay balse guushu ma wada qaad 12 qof hal kamid baa guuleysta noqon doona 6 baa had waa gaari doona had semifinal kan ku jirna dabcan 12 kan caawa 6 kamid ayaa waxay u gudbi doontaa finalka kadib ayaa hadana qof guuleysta noqon doona insha Allah marka waxaan rajaynaynaa 12 kan nasiibkooda
lixda u gudbi doonta inaan caawa markhaati ka wada noqono kadibna lixda kalena insha Allah sidan iyo si kasii ballaaran finalka inaan iyadana barnaamijkan inta kasii weyn isugu nimaano aan qofka ku guuleystana uu noqon doono fanaan ku soo biiri doono fanaaniinta Soomaaliyeed dabcan 12 kalena ma ahan inay hamigooda ama rajadooda hadayna guuleysanin walaalkooda guuleystay ama walaashooda guuleysatay taageeri doonaan iyaduna hibadooda waxay heli doonaan fursado badan oo ay ku sii bandhigaan waxaan leeyahay nasiib wacan dhamaantii tartamayaasha intaana barnaamijka u gudbin waxaan ku furi doonaa hees waana mahadsantihiin waxaan leeyahay nasiib wacan mar labaad kuraastiin igu laabta waxaan iminkana barnaamijka ku furanaynaa hees uu inoo qaadi doono fanaan da'yar waa Jamaal Onkod kadibna barnaamijka ayaan si toos u gudagali doonaa waana mahadsantihiin
aad ayuu mahadsan yahay fanaan Jamaal Onkad dabcan waxaan soo gaarnay qaybtii aan wada sugaynay qaybtii aan isoogu nimid oo ah qaybtii ay tartamayeen 12 ruux ee ugu dambeysay ee u soo gudubtay semifinalka 12 waxaan insha Allah laba ayaan ugu yeeri doonaa labadan mar walba qof baa soo hormari doona iminkana waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cabduqaadir Maxamed iyo Maxamed Maxamuud Maxamed balse waxaan marka hore u yeerayaa محمد عبد القادر محمد إنه نقطة قف كوباد عاون نصيب كيس التجابية فضلا إلى السودوية محمد عبد القادر محمد باي سلام المانتين
garashadaadii igaraabi weyde aniguna garaadkay ka gaabsan waaye alla garashadaadii igaraabi weyde gargaarimayside dhurkaan habeenkii dhaxanta iyo goora awada godoome dhibta aan galaayana igargaarimayside dhurkaan habeenkii dhaxanta iyo goora hadan garab kala la qaban guriyoodi maaye Muhammadan ilaahba kudkood saare sida kaliya baare ogoodi dhaqan awada godoone Muhammadan ilaahba kudkood xilsaare sida kaliya baare ogoodi dhaqan awada godoone aad iyo aad ayuu mahadsan yahay tartame maxamed cabdiqaadir maxamed iminkana waxaa la tartamayaan u yeerayaa maxamed maxamuud maxamed ila soo dhaweeya isagana
ogiya jacayl waa maxay ogiya jacayl waa maxay waa macaanaanba waa qaraar noolba waa siduu kugu soo maree waa macaanaanba waa qaraar noolba waa siduu kugu soo maree waa magaca cudur dadka ugu xumee dadku mooyee amoodeesigane maleeya oo maxaa lagu daweeyaa waxaa noo bilowday tartamayaashii oo laba u tartamayay laba maxamed waa mahadsan yihiin labadooduna wixii ay ka helaan waxaan ka ogaan doonaa insha Allah inta uu socdo guddiguna uu ka gaarayo go'aanka haddana waxaan u yeerayaa laba tartamo oo kale
marka ay laba u tartamaan ay dhammaystaan dhammaantood ayaa haddana labadii ugu horreysay laba maxameda loo yeeri doonaa qof walbana la ogeysiin doonaa halka qof ee guuleystay ku noqon doono saas ayaanu ku ogaan doonaa lixda qof ee u gudbi doonta finalka iminkana waxaan u yeerayaa waa Cabdiqaadir Muxiidiin Kulmiye iyo waxaa la tartami doona Khadar Maxamed Mahdi waxaana hormari doona Khadar Maxamed Mahdi ila soo dhaweeyay tartama Khadar Maxamed Mahdi وقتي كويليو
karaa cilmiyada ilaahiyo wasdaba cadaabaan waxaana ku cadday karaa cilmiyada ilaahiyo كبا عقل الموايين عنك وحلايني كبا عقل الموايين عنك وحلايني يا أراني لا ضل في علمي قاتل عشق حبايين aad iyo aad ayuu mahadsan yahay tartama khadar maxamed mahdi waxaan filayaa daqiiqadba daqiiqa ka dambaysa inay xiisuhu sii badanayo tartamuhu ka dambeeyana uu sii farxad gelinayo kasoo qaybgalayaasha iminkana waxaan u yeerayaa cabdiqaadir muxiidiin kulmiye isaguna inuu goobta la yimaado wacdarihiisa oona la tartami doono tartama khadar sidaan idiin sheegayna laba ayaa loo tartami doonaa hal mar ayaana wada ogaan doonaa insha allah lixda gadaal usoo gudubta
markaan hadalka jooja anu jiibtamaya aan jajeersado orojaga ka siiya jamal quruux wanaage jawhariya luulay aba jowraniye markaan hadalka jooja ujiibtamaya aan jajeersado orojaga ka siiya حيق بديق على جلالتيق وجهال الليل حيق بديق على جلالتيق وجهال الليل كلام 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 تحيل كوي تجير دايلا كوي تقال كيغالو أسوجي سنيوي كلام 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 تحيل كوي تجير دايلا كوي تقال كيغالو أسجي سنيوي أسجي سنيوي aad iyo aad ayuu mahadsan yahay tartama cabdiqaadir muxiidiin kulmiye waxaan filayaa iminka dhextaalka ama inta idinka soo dhexgalayaba inay idin qasayso aad rabtaan inay isku xigaan heesuhu balse nasiib darro taasi ma dhici doonto mar walba waad ila kulmi doontaan aniguna waxay tartama aan lala tartamaynin qaybta ugu dambaysa ciyaaraha soo geli doona balse intii hore waxaan aragnay 4 rag oo tartamayay iminkana waxa uu gudbaynaa qaybta dumarka waxaana tartami doona Asli Abukar Ahmed iyo Sara Ahmed Jumcaale waxaana u yeerayaa Asli Abukar Ahmed iga raali noqda halkaas waxaan hormarin doonaa Sara Ahmed Jumcaale kadibna way ku xigi doontaa Asli ila soo dhaweeya Sara Ahmed Jumcaale
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay tartama Sahra Axmed waxaana la tartami doontaan u yeerayaa iminka Asli Abuukar Axmed ila soo dhaweeya iga qaloocan
waxaan iminkana sidaan idiin sheegay shaqada ugu culus ee u taallaa guddiga garsoorka tartamayaasha waxaan u yeeri doonaa labadii qof ee ugu horeysay ee heestay kadibna banalka ayaan siin doonaa fursadda guddiga waxaan u yeeri doonaa waa maxamed cabdiqaadir iyo maxamuud laba maxamed baa tartamay labada maxamedkii guriga aadi doona iyo maxamedka aan dib u daawan doona iyo finalka waxaan noo kala sheegi doona guddiga ayaana ku bilaabayaa soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta guud ahaan 12 isugu soo baxay semifinalka ama 12koodu dee 12 waa 12 sare weeyaan mar hadday soo gaadhaan semifinalka wareegan haddii la soo gaadho inta wareegan soo gaadhayba waxa weeyaan in lagu xisaabtamayo oo ay bulshada Soomaaliyeed ku xisaabtamayso oo ay dhageystayaasha xiiseeyo fanku ku xisaabtamayaan weeyaan 12koodu laakiin deegari laba nin kama wada qosliso haddana sidaa ay tahay 6 baa u gudbi doona finalka waa hagaag kooxdan koowaad maxamed wuxuu ku guuleystay 255 dhibcood maxamed cabdulqaadir maxamedna 270 dhibcood isaga ayaana u gudbay wareega finalka way ya dabcan laba maxamed hal mar bay stage ka wada degeen dadku iyagoo isweydiinay keebaa guuleystay waxaa nasiib u yeeshay inuu u gudbo waa maxamed cabdiqaadir maxamuudna waxaan leenahay waa dadaashay barnaamijkana waxa uu leeyahay qaybo badan oo xigi doona sanadkan waa sanadkii koobaad dabcan sanadkii koobaadna mar walba waxay la timaadaa tijaabadeeda cusub waxaan rajaynaynaa barnaamijyada dambe iyo kaalintaada fanka ee aad doorkaaga ku soo bandhigtay barnaamijkan inaad sii wadi doonto adiguna maada guul dareysan aadna guuleysta kale ayaa tahay waxaan ku leenahay hambalyo waxaan leeyahay maxamed cabdiqaadirna hambalyo waxaan dib u arki doonaa maxamed cabdiqaadir kulankan xiga maxamed hal taagnaada halkaa geeska halka geeska iska jiro haye hadhow baa loo yeeri doonaa guuleystayaasha hadda waxaan u yeerayaa labada xigta waa iyaguna waa cabdiqaadir muxiidiin kulmiye iyo khadar maxamed mahdi waa hagaag khadar maxamed waa kooxdii labaad weeye kooxdani khadar maxamed mahdi 250 dhibcood ayuu sitaa cabdulqaadir muxiidiin kulmiye 350 dhibcood ayuu ugu gudbay finalka ayuu ugu gudbay 350 dhibcood waa maasan yihiin tartamayaashaas iyaguna labadii qofood tartamay waa cabdiqaadir muxiidiin kulmiye iyo khadar maxamed mahdi waxaa finalka u gudbay waa khadar maxamed mahdi waxa u gudbay cabdiqaadir muxiidiin kulmiye iga raali noqda khalad ayaan galay waxaan leenahay khadarna waa dadaashay adiguna mid lamida sida tartamiyo hore kale si fiican salaamade markii la kala badiyo waa la isla salaamaa waxaan iminkana gelaynaa qaybtii gabdhaha waxaan u yeerayaa waa asli abuukar axmed iyo sahro axmed jimcaale iyaguna waxaa go'aamin doonaa qofkii u gudbaya finalka guddiga garsoorka tartamayaasha asli abuukar axmed waxay ku guulaysatay ama ay heshay 250 dhibcood sahra axmed jimcaale iyadana waxay heshay 340 waxaa finalka u gudbay
سارة أحمد جمعالي سارة هالمر يسو جيسو وحان كلنا يا مبروك وحان كلنا يا هاي هدان بوكسدون كريستو برواقبة هاي الرعدة بلايا هاي الرعدة هدين بلايا يكون راعين وما سنتي ambaliya ayaan leenahay Saara Axmed oo u gudubtay iyaduna finalka oo aan dib u maqli doono codkeeda iyo qaybta ugu dambaysa kamid noqotay gabdhaha u tartamaya waxaan iyaduna leenahay Asli Abuukar waa dadaashay waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal ifiye iyo barnaamijyo kuwan ka qurux badan iyo qaybaha dambe bayna isugu nimaan doono